wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabele xildhibaan maxamed bashiir daqare ayaa maanta kulan la qaatay beraleyda ku dhaqan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay saameynta ku yeelatay fatahaadii uu sameeyey biyaha webiga shabeelle. kulankan maanta uu la qaatay xildhibaan bashiir maxamed daqare ahna wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka hirshabele ayaa waxaa ku weelinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada baladweyne. ugu horeyntii waxaa warbixin laga dhageystay qaar ka mid a dadka beeraleyda waxayna ka warameen saameyntii ka dhalatay fatahaada biyaha webiga shabeelle ay ku reebeen beeraha magaalada baladweyne. waxaan cabasho ka nahay in wax nala laga qabto dhibaatooyinka webiga shabeelle oo u geystaan beraleydaas ay u geysteen kanaal leh beera leh oo dalag leh ayuha nooc waxay ka noqdaanba dhibaato ay u geysteen iyo meelo badan oo biyaha ay ka fatahaan oo dalagaas dhibaato ay ugu geystaan inaan laga caawiyo. quraxsan ah wixii beeraley ahay saddex biyo baxo oo degdeg ah oo laba ay baas tahay halna ay riyaalo tahay inay ku dhacday oo wixii dalag ay baaba'een tacab la'aan ay dhacday. marka dawladda dhexe mid hirshabelle insha Allah taala maamul goboleedka iyo hay'adaha dawliga iyo mid NGO-yada iyo maxalliga inay arintaas ilaa saacana wax naga qabtay ma jiraan inaan si hoose noola fiiriyo oo beerahaas la soo booqdo oo wax naga qabtaan rajaynaa. sidoo kale goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada baladweyne Cismaan Ciise Dhuubo iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali. soo dhawaado bari ilaahay marka hore aan ku dhawaano waxa waay aan fuwaaya biyahan saddex dalab oo isdaba taagan oo dhibaatada ay dhacaysa waxaan la fiirinayaa marka hore iimaanka la fiirinaya marka hore iimaanka Allah na geliyo iimaanka Allah idin geliyo waad sheegteen in beeraleytiin waan idin ognahay laakiin dan timid aweed ayaa meelaha aad degmatiin loo imaan waayo marka insha Allah ila biidin kareem anaga waa dadaalinaa adahan waxa u sheegaynaa deeq bixiyaasho dawladda hirshabelle federaalka inta waxa uu sheegay dadkaas baahan in ilaahay maartii ilaahay wax ugu soo qabto u keenaan insha Allah waa rajaynaa. hadda magaalada baladweyne joogo xilbaano badan joogo laakiin wasiirka aan isleenahay ugu horeeyay oo marka miyacsaday in dadkii marka uu arko gaar ahaan dadkii beeraleyda ahaa aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa. intaas kadib waxaa hadalka qaatay soo gunaanada xafladda wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan maxamed bashiir daqare. cabashadiinni iyo wixii aad sheegteen aadaan u maqalnay. waxaan idiin sheegaa marka dowladnimadu waxay ka bilaabataa maamulka tuuladaas ku xiran degmadiisii gobolku sii xiran wasaaradda yimaado oo wada shaqayn dhaba isku xugwarsa waxyaabaha aad tabanaysaan way jiraan hirshabelle inta badan meelo badan ay ka jirtaa NGO-yada waxaad moodaa in wax badan ay isdawmarsiinayaan qaladaadka jira waxaa ah baahida la gudbinaayo degmada laga gudbinayo marka hore ee dalabka la samaynayo inay cidda samaynayso maamulka degmadii gobolkii wasaaraddii waxay wada ogyahay ay noqoto waxaa dhacaysa si hoose in wax loo qoro loo gudbiyo kadib wixii qorshihii yimidna mid qalad uu noqdo ay meelna ay qaldaan meelna ay noqoto runtii marka gudoomiyaha degmada aad u mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada kale ee degmada inta waxa shaqadan way xusaysaa gudoomiyaha degmada marka waxaan leenahay arrintan hoos u fiiri xil badan ayaa ka saaran